labada aadood ee albaqara ugu dambaysa ama suuradda albaqara awaakhirkeeda iyo suuratu alfaatixa waa laba aayadood waa laba ilaahay uu nebi maxamed uu ka siiyey khazaa'inta carshiga hoosteeda taalla intoo la furay baa nebiga looga soo saaray qur'aankii kariimka ee malaa'igtu ay soo wadaan ayaa laga daba keenay deedna markaasaa baytulcizi la dhigay malab ayaa si gaara intuu nebi maxamed ugu yimiday labadaa u keenay oo kule abshir binuurayni uutiitahumaa bishaarayso laba nuur baa ilaahay igu kaa soo dhiibo adiga lagu siiyey adiga hortaa nebi nasiib u yeeshay in la siiyana ma jirin waa labadee khawaatima suurat albaqara iyo suurat alfaatixa weeyaan xaraf ka mida ilaahay baahidaada xaraf ka mida ilaahay kuma weydiisatid khayr adduunye iyo khayr aakhira waxaad doonaysid ilaa ilaahay waa kuu aqbalaa ducada waa lagu siiyaaba lagu yidhi makhluuqa ilahay ka fikir waa maxay ka lixaadka loo dhammaystiray eeg deedna ilaahay xasuuso ka lixaadka laga naaqusay eeg deedna ilaahay xasuuso ka cad eeg deedna ilaahay xasuuso ka madow eeg deedna ilaahay xasuuso ka faqiirka eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka xanuunsan eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka ubadka la siiyey eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka bilaa ubadka laga dhigay eeg deedna ilaahay ku xasuuso khalqigan oo dhan waxaad ka dhex arkaysaa ilaahay aayaadkiisii baad ka dhex arkaysaa nin taajira oo ganacsada ayaa jamaaca ku ziyaaratay xafiiskiisii shaashad weyn baa hor taalla xafiis kasta oo shaqaalihiisu ay fadhiyaan kamerabaa u dul saaran halkaa buu kala socdaa si fiican hadalka u dhagaysta markaasay jamaacaddii kolkay u xadiiseen bay ku yidhahdeen maxay shaashadda inaad kolba mar eegay sideed dadkuna dhex soo socdaan wuxuu yidhi waa shaqaalahaygii baan halkaa kala socdaa buu yidhi oo gabdhaaba ku jire maxaad gabdhaha u khaawisi buu yidhi marmarkii qaarkood shalmadaaba ka dhacayse wuxuu yidhi si kale oo lagu aaminaa ma jirto kameraagaa bay ka baqayaan deedna xoolahaygii iyo shaqadeydii baa ii nabadgalaysa buu yidhi ninka dadka muxuu ka aaminsan yahay markaa u shaqaynayo oo dhan waa tuug way idhacaan kameraaga waxaan u wada duldhigay waa in xoolahaygu ay ii badbaadaan saasuu ka aaminsan yahay soo maha inte muxuu ka aaminsan yahay waa tuug qof la aamini karaa ma jirto mid baa mid sidaa ku yidhi dadka maanta wax la aamini karaa maba jira buu yidhi kaad meel u dhiibtaba uu ku dhacayaa buu yidhi ayib shaqaalihiisii qof ka mida ayaa maalin isagana meel lagula kulmo markaasaa lagu yidhi maalin baan sarfiiska kugu soo maray iyaad u shaqaysaa shirkaddaa baan ka shaqeeyaa imse sanaa ka shaqaysaa 7 sano lacag muxuu ini siiyaa intaa maalintaad shaqada bilowday ilaa 7 sano lacagtaadu ma intaa unba waa intaa oo nima biiriyo sanad kasta wuxuu nagu yidhaahdaa waa nii biirin noomana biiriyo ballan kasta sanad walba ballan buu noo qaadaa ballanna ma ilaaliyo waana beenaale bay yidhahdeen iyo kii shaqaalihii waxay isaga ka aaminsan yihiin waa beenaala ninkaasi isagii iyaka wuxuu ka aaminsan yahay waa tuug haddana ninkii maalin dambaan aragnay bal waranoo ma fiicantoha shirkaddii way kacdo waan xidhay buu yidhi maxaad u xidhay wax dad aan aaminaan weynay buu yidhi khalaas dadkii ammaano male buu yidhi waxaa laga yaabaa dadka u shaqaynaya o dhan inay jaamacada ka soo baxeen isagani inuu jaamacad soo dhigtaan laga yaabaa laakiin ammaano qofkii inuu yeesho inuu ballan buuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo inuu cadaalad falo uu noqdo inuu dabeecad wanaagsano uu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay mise iimaan bay u baahan tahay bal ii sheega iiga jawaaba alxamdulilah kulligeen ka hadlaaya kalala hadlaayo intuba waxaan u baahannahay maaragtaan innaka ilaahay u baahan ilaahay innaka u baahan diinta islaamkana innaka u baahan kalluunka noloshiisa ilaahay wuxuu dhex geliyay waa biyaha dhexdooda weeyaan hadduu biyaha ka dhex baxo uu dhimanayaa bani aadamkana cizigooga sharaftooda
aakhiradooda adduunyadooda meeshay ku hagaagaysa ilaahay waxuu ka yeelay waa diin hadday diinta islaamka dadku ay ka dhex baxaanna way dhimanayaan marka kulligeen innaka u baahan ilaahay innaka u baahan salaadan tukanay innaka u baahan diinta inaan maqalo oon isku baraarujino oon ka wada hadallo innaka u baahan rasuulkeennii udgoona calayhi salaatu wassalaam ibn mascuud radia allaahu canhu ayuu ku yidhi qur-aanka dusheeda ku akhri waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa ardaydiisii ka mida ka dalbanaya qur-aanka inuu dushiisa ku akhriyo marka cabdillaahi bnu mascuud radia allaahu canhu wuxuu yidhi aqra'u calayka wa calayka unzil yaa rasuula allah ma adaan dushaadan qur-aanka ku akhriyaa qur-aanku aduuba kugu soo degee waxau nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ugu jawaabay innii uxibu an asmacahu min hayrii qur-aanka waxaan jecelahay inaan dadka kale ka dhegaystee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna waa wacdigii ilaahay waa bayaankii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu khalqigiisa u jeediyey weeyaan haddii qur-aanka dushaada lagu akhriyo ama qur-aanka adigu aada akhrisanaysid ama meel ilaahay wacdigiisa lagu hayo aada maqasho waxaad ogaataa qur-aanku waa wacdiga ilaahay waa wacdi waa bayaan waa balaaq hada balaagun linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu annamaa huwa ilaahun waaxidun waliyadakara ulu lalbaab hada bayaanu linnaas qur-aanku waa bayaan waa mawcido markaad qur-aanka akhrisanaysid ama qur-aanka dushaada lagu akhrinayo waxaad ogaataa bayaanka ilaahay uu khalqiga u jeediyey ayaa adiga dushaada lagu akhrinaya marka nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam waxa ugu jawaabay ardaygiisii innii uxibu an asmacahu min hayrii waxaan jecelahay qur-aanka dadka kale inaan ka dhegaystoon ka maqlee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam faqara'tu calayhi suurata annisaa suuraddaasaan dushiisa ku akhriyey buuhi nebiga dushiisa ilaa laga gaadha aayaddaas fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markaa halkaa uu maraayo ayuu nebigu yihi xasbuka al'aan hadda qur-aanka halkii aan rabay aada gaadhsiisee intaasaa igu filana jooji buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam waxaa kugu fillaatay intaas deedna saxaabigii wuxuu yihi nebiga ayaan xaggiisa daymooday waaba nebi maxamed sal allahu calay wasalam oo labadiisaa indhood maaragtan ilintu ay ka daadanayso inaku maanta qur-aankii waan maqlaynaa wacdigii waan maqlaynaa laakiin isbeddelkii uu yar yahay aayad qur-aanoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dushiisa lagu joojiyey ayaa nebi maxamed uu la ilmeeyey fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin xaalku sidee buu ahaan doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan keenno iyada iyo nebigeedii oo maragga ku furaya inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey adigana markhaati aan kuu soo joojinno xaalo aad ku marag furi doonto ummadaada inaad diintii aada gaadhsiisay ana nebigeenu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ayuu tadabburayey qur-aanka ayuu ka fikirayay qur-aanka markuu akhrisanayana uu ooyi jiray oo caaisha radia allaahu canha waa tii tidhi salaataleylka markuu nebigu tukanayo rakacad keliyuu nebigu ku tukanaya suuratu lbaqara iyo ala cimraan iyo suuratu nisaa sarajoogga dheeridiisa ayaa nebigu lugihiisu ay bararayeen deedna markaabay ku tiri lima tasnacu haada yaa rasuula allah yaa rasuul allah maxaa sida naftaada aad ugu kalifaysaa
ilaahay adiga macsuum buu kaa dhigo dembigii horena waa kaa dhaafay kii dambena waa kaa ilaaliye markaabuu nebigu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura miyaanan jeclayn inaan ahaado aniguna addoon rabbigiisa ku shukrinayo ku mahadnaqaya aayad ka hadlaysa ilaahay tansiihdiisa hadduu marana nebigu ilaahay buu nasahayey aayad ka hadlaysa maaragtaanee jannada hadduu dul marana jannadu ilaahay weydiisanayey aayad naarta ka hadlaysa hadduu nebigu iskortaagana naarta ayuu ilaahay ka magan galayey aayad ka hadlaysa ilaahay weynigiisa hadduu marana ilaahay buu nebigu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a salaadii subax ayaa la gaadhay sunnaha nebigu sal alla alay wasalam aqaladiisu ku soo tukani jiray inaku maanta salaada farad iyo sunnaba waxaan la imanay maaragtaan waa masaajidii aqaladeennii nasiib maxaan u yeelnay salaada sunnada salaad sunna ah uu qofku tukada buu nebigu xadiid ku yidhi salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan ilaa salaada faradka mooyaane salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunnahee waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyaane faraa'idana masaajidda loogu talagalay sunnadana waxaa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdaa aqal masaajidka cilaaqa la leh hadda aqalka salaada lagu dhex tukanayo oo qur-aanka lagu dhex akhrisanayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadal haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa kalmasjid laakiin aqaladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonayaa aqalkaasi qabri bannaanka dul yaalluu noqonayaa laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqaladiina qabuuraha ka dhigina buu nebigu yihi sal alla alay wasalam imaam atirmidi raxmat ullaahi calayhi wuxuu yidhi aqalka haddaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaadee laga wadaa marka haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqalada ku tukadaan baa u fadli badan raggana faraa'idana inay masaajidda ku gutaan sunnaha ay tukanayaanna sunnaha ugu fadli badan buu nebigu yihi waa kay aqalka dhexdiisa maaragtaane ay la tegayaan aqalka kusoo tukanayaan haddaan aqalka salaadba lagu dhex tukanaynin qur-aanna lagu dhex akhrisanaynin diinna aan lagu dhex baranaynin ilaahay tabaaraka wa tacaalana aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu yihi imaamkaasi waa qabri bannaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay la mid yihiin buu yidhi meesha laga dhintaa laga noolaada maaha jirkan dhimashadu runtu waa ta qalbiga weeyaan qalbiga marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu ku soo tukanaya aqaladiisa salaada faraa'idana wuxuu la iman jiray masaajidka dadna bilaal baa nabiga u tago ku yiri yaa rasuul allah salaadii baa taagan oo jamci way ku sugayaan markaa buu nabigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso meeshuu nabigu ku sujuudayana ay ilintu ay qoysay dadna markaa buu nabigu ku yiri yaa bilaal xalay toola aayadahan quraanka ayaa dusheeda ku soo degay waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar buu nabigu sallallahu alayhi wasallam aayadaha ninka akhriya ee aanan tadabburin ee aanan ka fikirin ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin uu hoogay buu nabigu uuna khasaaray qofkaas awakhir suuratu ala imran samahayn أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا subxaanaka faqinaa cadaab annaar aayadahaasaa dusheeda ku soo degay buu nebigu xalay toole yidhi aayaduhu maxay ka warramayaan markaas ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaar samaawaadka iyo araadiinta abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya isbedilaya iskaxaynaya maalintiibaa yaa joogtay habeenkiibaa imanaya maalintiibaa tegaysa maalintiibaa imanaysa habeenkiibaa tegaya
nolosha adduunka dhanba waa habeen iyo maalin isbedelaya bal wax u dhaxeeya sheeg wax saddexaad ma jira oo habeen iyo maalin hadday habeentaas aad u noolaan lahaydna nabi maxamed baa kuu jideeyey sallallahu alayhi wasallam hadday maalin ay tahayna saad maalinta u gudan lahayd aad noloshaada u gudan lahayd nabi maxamed baa kuu jideeyey dadna samaawaadkan eeg ilaahay dushaada uu dhigay oo dhulka eeg oo khalqiga samaawaadka lagu dhex abuuray fiiri dadna ilaahay xasuuso yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan ilaahay bay xusayaan iyakoo taagan iyaka oo fadhiya iyaka oo jiifa oo maxay leeyihiin rabbanaa maa khalaqta hada baatila ilaahu cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan dheeldheel umaad abuuran bay leeyihiin subxaanaka ilaahu xumaan adaa ka hufan nuqsaan adiga ayaa ka hufan ee faqinaa cadaaba annaar ilaahu cadaabka naarta naga dheeray oo naga badbaadi bay ku ducaysanayaan 24 saacadood ku soo maraysa bal saacad walba hal saaco saacadiiba hal mar ilaahayna xasuuso aakhiradana xasuuso waad noolaan meeshaad ka noolaanaysid qalbiga noqona ogow meesha dadku ay ka dhintaan ama ay ka noolaadeen waa qalbiga marka natadabbar waa inaan ilaahay xasuusanaa mar walba afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka maysan fiirinayn baa ilaahay leeyahay mase qulubtooda ayaa qafilan oo qur-aanku muxuu ka warramayaa naba'u maa qablakum buu ka warramayaa waxalli wixii inaga horreeyey nebi aadan abuurkiisii ilaa joogadaada maanta adduunyada wixii dhacay buu qur-aanku ka warramayaa waalkhabaru maa bacdakum waxalli waxa adduunka inaga dambeeya dabadeed gadaasheenna iman doona ayuu qur-aanku ka warramayaa waalxukmu maa baynakum ininka dhexdiina buu nebigu leeyahay waxay aad xukun aad dhexdiinna uga baahnaydeen hadday tahay xaqa walaalka aad ku lahayd hadday tahay xaqa jaarkaaga aad ku lahayd hadday tahay xaqa aabbahaa kugu lahaa hadday tahay adigu xaqa waalidka aad ku lahayd hadday tahay mas-uulka raciyadda xaqa ay ku lahayd hadday tahay raciyaddu mas-uulka xaqa uu ku lahaa qur-aankaa waxaasoo dhanba ka warramaya huwa alfaslu laysa bilhazli waa fasl waa xukum ilaahay xaggiisa ka yimid kaftan qur-aanku ee dheeldheel ma galo akhriskiisii waa cibaado eegiddiisii waa cibaado ku dhaqankiisii waa cibaado barashadiisii waa cibaado bariddiisii waa cibaado fidintiisii waa cibaado xukunkiisii waa cibaado man camila bihi ujr ninka qur-aanka ku camal fala ajar baa ilaahay uga qoraya waman xakama bihi cadal ninka qur-aanka ummad ku xakumana u cadaalad falay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim waman qaala bihi sadaq ninka yidhaahda qur-aankaa sidaa yidhi run buu sheegay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ninka dadka ugu yeedha xagga qur-aanka yidhahda war qur-aanka han raacno war shareecadeenna han baranno war diinteenna han ku camalfalno war diinteenna han ku dhaqanno war diinteenna ummadda han barno war diintaa dad kaa dhigaysa qur-aanku dad buu kaa dhigay dad waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ninka dadka qur-aanka xaggiisa ugu yeedhaa dariiqii mustaqiimka ku dhacay baa iyuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam marka qur-aankaa ilaahayna siiyey ummaddii qur-aanka ilaahay naga dhigay innaka nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam oo keligii meel fadhiyu jibriilla ag taagan yahay ayuu nebigu ka maqlay xagga samada shanqadh sawd markaasuu argagaxay jibriil buu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam jibriil baa ku yidhi albaab samadu ay leedahaa maanta la furay maanta ka horna albaabkaa lama furin samada malag baa ka soo daadegay maanta malagaasi maanta ka horna adduunyada muusan iman albaabkaana maanta la furay malagaana maantu adduunka yimiday malagii baa nebiga salaame calayhi salaam markaasuu yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa
يا محمد لبن نور بان كو سدايو إلهي إيقو كاسو ديبه بشارة سبا لغو يري مثال نور لبن نور لم يؤتهما نبي قبلك أذيك هورتا النبي لبدا نور إلهي وسيو ونصيبه يشين مجرين بان لغو يري خواتم سورة البقرة وسورة الفاتحة لبدا عدود البقرة وقدم بيسا أما سورة البقرة أواخر كذا هي سورة الفاتحة واللبا آيات واللبا إلهي ونبي محمد وكسيي خزائن عرشك هو السيدة الله إنت الله فريب النبي قال له صو صاري قرآن كريم كل ملائكته أي صودان أيا لقد دبكيني بأن مرقاسا بيت العز لدقي ملك أيا سجارة إنتو نبي محمد وقوي مدي لبدا وكيني أو كله أبشر بنورين أوتيتهما بشارة يسول لبا نور با إلهي وقوكا سودي وأدق اللي قصيي أدق ورطا النبي النسيب ويشعين لسيين مجرين ولا بده خواتم سورة البقرة يا سورة الفاتحة ويان حرف كمد إلهي باهدا ذا إلهي باهدا ذا حرف كمد إلهي كموي دي ستد خير الدنيا خير آخرة واحد دون يسد إلا إلهي وكو أقبل الدعاء والله وصياب اللي يري كدو عيسو باهي ملهد أرباهي ملهن ملهد نمي باهي وان بوحنا سوما هذا باهي دالو واكنا كدو عيسو حاد ملك لعنده هو تاقي sanadkiiba dhowr kun baa jaamacada ka soo baxaysa dibloomkan shahaadadan aad gosha lagu soo galiyay ilaahay ku dhaweyn mayso ogow ilaahay waxa ilaahay aad ugu dhawaanayso waa quraankaas waxa haajadaada lagu daboolay waa quraankaas waxa adduunyadaada iyo aakhiradaada kugu hagaagayso waa quraanka raac quraanku dad buu ka dhigay dad حرف كمذا بالنبي قال له يري إلهي تبارك وتعالى كم بردد وبعد هذا إلهي وكم شيكتد إلا هي وهي خير الدنيا خير آخره هذا إلهي ويدي ستات كو الله بردي لبدا حروف تود حرف كمذا إلهي كم برده إلهي دعاء وكا أقبل والوصيم النبي قال له يري صلى الله عليه وسلم بلايا سو سعوتا كدو عيسى سورة فاتحة إلهي كبري نو الشبع عريري كوكو نغطي سورة كبري إلهي كدو عيسى مراد بالله إلهي كدو عيسى أواخر سورة البقرة إلهي كويدي سباهي دادا الباب كإلهي قراع حقوصا إبقى قدتك الزمن كان قوص بعد شبع طاقوس النابا ولا أنت أو سنان تكنيي حبايي ما بيريان ويكون بيريان دعاء ستد صدحهم بدعاء مدو دعدا إما بلايك وصوص عطين لقاقا دبالو لقاقا اللحيو إما إن الدنيا نوحي الله عاد ويدي ستي إلهي هذا كسيو إما إن آخرك لقوقو دقو آخر لقوقو دقو دب لقوقو دقو فالقرآن كنا مركز دي بقول نقولنا إن شاء الله هذا قرآن كنا برانينا قرآن كان تدبر يتفكر كو آخر سنينا صحابة الرسول رضي الله عنهم قرآن كاس يكون راعين إمام بكدك القرآن كإمام بقى هديته عبادة هديته أخلاق هديته تربية أولاد هديته سيدا مجتمع لولا دقمية حداي تحي سيدا قيس لولا دقمية حداي تحي قرآن كابر راعين يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتدبرون عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضه أدب قرآن كأفير سنجر موقته
مسكيتك النبي عليه الصلاة والسلام وهابين سوقلين ساعده دمبه أمير إسقوه لأنه مسؤولة وأمدا كم مسؤولة وعبادتي فرائضها هيد انتم مال ساري ولي بكد دالايا إنه نوافشنا ولي مادو مسؤول هبانكي بحود هبانكي هدان سيحدنا حق إلهي يقول هابان ضياعيا مالكي هدان سيحدنا حق أمد يقول هيد بان ضياعيا بولي أمركي الله أرجع عمر بن الخطاب ومسكيت كالنبي مركو فريستبا هردو دعا هردو دا أيا ريديسا يا أمير المؤمنين وادى شيء سيحبا اللي يري مركاسو هبانكي هدان سيحدو حق أمد يقول هيد بان ضياع حق إلهي يقول هابان ضياعيا لأن مؤمنكو هبانكي إلهي بولا مناجودا إلهي بو بريا مالكي هدان سيحدنا بو يري حق أمد يقول هيد بان ضياعي بيري مسؤول إلى هذا الحد عبادتي سحبينكي إلى سنة يبوها هبين هذا كمدو صوق لمساجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوارك ير شابة وقيام الليل كي أتاقنا القرآن ككرو قادايا واستعجل ودقيست والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى لقى قال إن عذاب ربك لواقع إلهي ودارنا كورن دارتي مركي دعدي وحي إلهي لي إن عذاب ربك لواقع آيات عمر مركو مغلبا ليدي بلكو كدعي الله قاضي أقل كان لقيي لباتن بالمول مدة كدوب حنون صنابا ليدي حنونك سببت الله حنون صدن لقما ورقبينه آيات القرآن كآيات قلبي ستابتي بالليدي عمر الفاروق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي النبي قوي مديسكو أويا يا مالين يا أبا بكر ما أنت محل له سايشك markaas uu yiri nabi allah suuradana kugu soo degtay labada aayadood ee u dambaysa iyagu inaysa buu yiri waxba kama tigin labada aayadood faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu mithqala dharra waahish bin aadaka qabata waxa ugu yaray aragto oo khayra inta qofkii sameeya maalinka qiyaamaha abaalka uu heli doonaa baa ilaahay yiri انت ان لاغو دنبي وشر قفك سمينا اخرته هلي دونا ما رغتان ابالكيس هلي دونا ابي بكر الصديق waxa uu leeyahay labadan aayadooda suurada ugu dambaysa waxba kama tagin ba nabi allah seen marka ku badbaadayna marka uu nabigu yiri ya Abu Bakar walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ilaahay ban ku dhaartay buu rasuulku yiri allah nafta Muhammadi ay gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay لو لم تذنبوا حديد ذنبي بوسن نيغا دعaynin oo dambi ka dhacayo aanad ahaynba la dhahab Allah bikum ilaahay intu adduunyada inaga kaxeeyo in qaado ayaa ilaahay waxa uu keeni lahaa duul wuxuu ilaahay keeni lahaa arlada dusheeda dambi ka dhaco ay dambi sameeyaan ilaahay dambi dhaaf ay weydiistaan oo ilaahay dambigooga uu dhaafo kuwaas ilaahay keenan lahaa rasuulku ku yiri عبسدي مركي كبدت أي النبي وحديثا كو أخرنا يا بلسدي مرنا أي نحريست إلهي أيسان وقوسا وحلي وحي الدنيا دوشي هذا كأركان ورن آخرة كد حركين يكو تابعين تبوها صلة ابن الأشيم رحمة الله عليه ننوحوها دادي سنتي ويناتي اعتزال بو سمي اعتزال ومحي يعني مجتمعي بو كدح بحي عباده مركا وتفرقي مالن كينا صيام حبين كينا قيام مالن كينا صوم حبين كينا صلاة الليل مركا نينا ادير وابا ويمدو كويري ان انت يدي بان كسيي وانا كو دسينا ولا سو قاداي مغالدي با لا كيناي غبادي با لو مهريي markaas ay leeyahay nin caabud cibaado badan dharna ma haysto markaas lagu yiri qolka
xamaamka galoo meedhe baa lagu yidhi dharkaa jadiidkana soo xidho markaasuu soo maydhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tahay orodoo halkaa ku hoyay baa lagu yidhi salafku habeenka ugu horeysa ee leylatu zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo qolka caroosadu ay fadhidana markuu cariisku ugu galo inuu assalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu 2 rakaca uu tujiyo iyada inagu sidaa ma samaynaa yaa haleelaba qola kaamera wadatayna haysatabe soo maahinde laa ilaaha illa allah wataan arkayna dhalinyar halkaa buuraha hoostooda taaganoo yaa leeyta war zayigii islaamka un balmaan qaadana maxaa kuu diiday zayigii islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa kuu diiday sunnatu caada xataa caadadeennii waxaad moodaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii dheeraanayaan dhaqanka islaamka leylatu zafaaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa 2 rakacay iyuu ninku reerkiisa uu tujin jiray waxay ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas-uuliyaddii aabbaha iyo hooyada saarnayd anaa kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada anaa kuugu imaama ana waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacadiisa iyo taacadda nabi maxamed inaanu kugu hogaamiye sida 2 rakaca aad igu daba tukatay haddeetooda aniga ii daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay للنبي وكيلها خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك دمرك توقو خير بدن بو نبي قدواتي واتمرك وننكي قد دايمورو كفر حساب رسولك يلي هدو الله الله هذا وناكسن بيكولها الله يسا هدو ايقنا وكفر حنيسا وحكفر حيه كولها الله يسا وحكفر حيه مقشين يسا wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoontoo way ilaashan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi marka 2 ragcadood ee sunnaha gabadha habeenka la tujinayo waa hadyigii saxaabada waa hadyigii salafka waxay ka dhigan tahay haddeetoola adiga anaa kuu imaama ana taacadda ilaahay iyo taacadda nabi maxamed baa kugu hogaaminay sidaas salaada aan imaamka kuugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada aniga kuu imaamay daba joogsay ka dhigan tahay hada marka salaada la tujiyo ayaa waxa sunna halka fooda in la qabto fooda ducada lagu akhrinaya allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat alayha somahin khayra ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha وشر ما جبلت عليه waxay ka dhigan tahay waxa ducada macnaheedu waa maxay ilaahow haween gabadan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeedana waan ka magan galay sharka aad ku abuurtana waan ka magan galay halka fooda maxaa loo qabanayaa fooda waxa ku taalabay culimadu leeyihiin waa dhaakirada qofka bini aadanka xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada haddaad kala garan wada ka waran labada soo khatar ma wama min daabatin illa huwa aakhidun binasiyatiha lidhalika ilaahay quraanka wakiilaha thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina aamanu dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajida ku barbaaray ee taacada ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay boqol hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaabay cibaadada boqol hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam 150 hadduu gaadho caqligiisu waa taam 200 hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro 60 jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa
shanqadhi qalow 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 bir baa ka dha shanqadhi uma radadnaahu asfala saafiliin baa u taalla lidaalika habeen ka horeysa gabadha halkaa in la qabtaa sunnaa markaa ninkii labadii rakaca markuu kacay iyadna ay daba joogsatay say laba rakaca ugu jireen salaadii fajar baa loogu eedaamay innakana ka warrama habeenka caroosada la soo hooyo dumarka ku yar hadha ayuu caroosku raagsadaa ayuu leeyahay war kuwan khayrkooga allaha badiye bay kaa soo baxaana soo saa maahide maasha allah laba rakacadood buu habeenkii oo dhan ninkaas taabiciga Salat ibn Ushaym raxmatullaahi calayh sidoo ugu jiray ayaa salaadii fajar loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bay ahayd oo saalixad oo sidiisa oo kale una at-tayyibaatu lit-tayyibiin wat-tayyibuuna lit-tayyibaat ilaahay baa quraanka ku sheegay nin dhalinyaro ayaa nin sheekh u yimid oo ku yidhi sheekh gabadh wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helaa ii sheeg buu ku yidhi markaa sheekhii baa ku yidhi adigu haddaad noqotid addoon ilaahay oo wanaagsan addoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kugu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid haa gabadh diin leh addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu as-saalixa soo nabigu ma odhan nolosha adduunyadu waa raaxo yar raaxada yar ee adduunyadana waxaa helay buu nabigu yidhi ninka ilaahay uu ku hagaajiyey gabadh wanaagsan oo diin leh soo ma doonaysid inaad hesho gabadh wanaagsan oo wanaagsan haa haddaba adu waa inaad noqotaa addoon ilaahay oo wanaagsan marka ninka nin wanaagsan buu ahaa ilaahay wuxuu u keenay gabadh wanaagsan oo habeenkii dhannaa salaata leylki iyaduna aanan odhan aadaankii fajarkaa dhacay uu ka baxay aqalkii ila almasjid subaxdiiba haweenkii baa u yimid caroosadii bal waran waana la ogaa ninkan inuu yahay nin caabuda suufi oo aan u jeedinba dumar markaasay ku tidhi salaadii aan gallay baa ka baxnay tidhi aadaankii fajarka iska dahay in laysa salaamee salaadii aan xidhannay labadii rakacadood aadaanka fajarkaa naga bixiyey tidhi isagii baa la qabsaday markaa oo la yidhi war ninkaagan khayr allaha ku siiye maxaad caroosadda xaleetoole aad sidaa ugu gashay wuxuu yidhi inninkaa iga gardaran buu yidhi markii u horraysay xamaan baad igelisay inood igu tidhaahdeen biyaha kulul ku maydho biyihii kulul dhulka qaboba moogtahay biyo kulul baa loo dhigay biyihii kululaa markaan isku shubay buu yidhi naartii baan xasuustay buu yidhi cadar iyo dhar cusubna waad ii iibiseen oo waad ii geliseen cadarna waad ii mariseen qol waxaad ii geliseen gabadh qurux badan oo la diyaariyeyna ay ii dhex taallo qolkaa markaan galayna jannadii baan xasuustay buu yidhi labadii rakaca markaan xidhay buu yidhi jannadii iyo naartii sidaan uga fikirayaa salaaddii fajar loogu eedaamay buu yidhi qulubteenna allah inoo nuuriyo salaadii fajar baa loogu eedaamay tuula leyl wuxuu ku jiray laba rakacadood mar uu janno xasuusto iyo mar uu naar xasuusto tafakkaruu fi makhluuqaati illaahi soo mahayn xadiiskii walaa tatafakkaruu fi lkhaaliqi fatahliku buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam makhluuqaadka ilaahay eega buu nebigu yidhi daadna ka fikira buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laakiin ilaahay daatadiisa ha ka fikirina haddaad ilaahay ka fikirtaan oo tidhahdaan ilaahay isaga ayaa sameeyey waad halaagsamaysaan buu rasuulku yidhi lanna shaydaankaa ku odhanaya kan ayaa abuuray allah khalqiga ayaa abuuray allah kan kale ayaa abuuray allah marka u dambaysa shaydaanku wuxuu ku odhanayaa ilaahayna isagana ayaa abuuray markaa waxaad tidhahdaan buu nebigu ilaahay ka magan gala shaydaanka waxaad tidhahdaan laa ilaaha ila allah dhahada waxaad akhristaa suuradda ikhlaaska akhrista lidaalika nebigu waa kii lahaa makhluuqaadka ilaahay ka fikira buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laakiin ha ka fikirin ilaahay daatadiisa makhluuqa ilaahay ka fikir waa maxay ka lixaadka loo dhammaystiray eeg deedna ilaahay xasuuso ka lixaadka laga naaqusay eeg deedna ilaahay xasuuso ka cad eeg deedna ilaahay xasuuso ka madow eeg deedna ilaahay xasuuso ka faqiirka eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka xanuunsan eeg deedna ilaahay ku xasuuso
كأوبتك اللي سيئ إيج دينا إلهي كو حسوسه كبلا أوبتك لغا دغ إيج دينا إلهي كو حسوسه خلقك oo dhan waxaad ka dhaxarkaysaa ilaahay aayatiisa baad ka dhaxarkaysaa ilaahay aayatiisa kam min albashar ba ilaahay abur arba fuqaraaya arba aghniyaaya arba caafimaad lagu deeqay arba xanuun lagu ibtileeyay arba faqri lagu imtixaamay arba awlaad loo hagaajiyay arba awlaad laga bixiyay arba waxbarashada loo furay arba waxbarashada lagu adkeeyay qaar baa islaamnimada ilaahay ku galladaystay qaarna gaalnimada ilaahay u qadaro gaalnimo ku dhimanayaan qaar aqligii baa ilaahay siiyay qaarna aqliga ilaahay ka qaaday qaar lixaadka loo dhameystiray qaarna lixaadkii baa laga naaqusay ma arkaan ma maqlaan ma hadlaan qaar baana socod qalada u jiifa qaar baa aqoon kasta leeyihiin haddana fuqaraaya qaar baa aqoon aan lahayn haddana ilaahay ka dhiga aqniya iyo maalqabeeno magaaladeenan ma dadka aqoonta la ugu maal badan mise dadka aqoonta aan lahayn ya arko ugu lacag badan ma jaamiciyiinta ugu lacag badan mise dadka aan jaamacadda soo dhigan marka jawaabade dadka waxba soo dhigan ba ugu dhaqaalo badan dhalinyaro ardayaan arkay oo markaa bir sheekh jaamacadayna waan dhammaynay shahaadooyinkii waan haysanaa shaqana ma hayno dhalinyaro aad u fikraya buu ahaa wuxuu cilmigaaga la eegi maayo zamankana ciddaa tahay baa la isweydiiyaa buu marka horeysaba Soomaaliya la qabiil baa lagu halaagay markaasaan idhi diblomkan aqoonta aad baratay waa gooni arsaaqaduna gooni shaqo iskuma leh aqoonta baro lama diidan inaad wax barato inaad dhakhtar noqotaa lama diidayo inaad injineer noqotaa lama diidayo inaad maaragtaanay professor aad noqotaa lama diidayo inaad macaadinta arlada sida loola soo baxa aad noo barataa lama diidayo laakiin aqoontuna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqada marka ayaa bixiya waxbarashadaad baranaysid iyo arsaaqadaada cilaaqa kama dhaxaysay ogow habeenkii ilmaha yar 120 habeen uu jiray calooshooyadii uu marxaladaha uu marayay uu nabigu sheegay 40 ka hore buu nabigu waa nutfa 40 ka dhaxana buu nabigu waa calaqa waa xinjir yar oo dhiiga 40 ka ku xigana buu nabigu waa waslad yar oo hiliba dana 120 ka markuu jiro ayaa malaga loo soo dhiibaa ruuxda oo la yiraahdo ku afuuf habeenkaas afar shay ilmaha caloosha kale loo qoro afar shay arsaaqadiisa habeenkaas la qori buu nabigu intuu cunayo ajashiisina habeenkaas la qori maalintuu dhimanayo labiyo dhidig midku ahaanayna habeenkaas la qori ahla naar iyo ahla janna midku yahayna habeenkaaba la qori buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam ku salli rasuulka arsaaqadaadii habeenkaaba la qoray intay tahayna ilaahay waa ka qariyay intaad adduunyada ku noolaanaysa habeenkaaba la qoray intaad jiraysana waa laga qariyay bal ka warrama sidee noloshu ay noqon lahayd haddii ilmo kasto inoo dhalanaya uu noo dhalan lahaa asaga oo taariikhda uu dhimanayana halka ugu qoran tahay sidee noloshu noqon lahayd bal ka jawaaba oday baa inaan ku oran lahaa adeer de mabruuk waan maqlay inay wiil aad ku curatee adeer waa mabruuke laakiin 2022 bisha 22 igu dhimanayaaba ku qoran buu maxaa la sameyn lahaa bal ka warraba taariikhda dhimashada laga qariyay baa raxmadaba walow 100 sano kadib haddaan lagu qori lahayn inaad dhimanayso oo halkaa kaaga qornaan lahayd walwali walbahaari murugba ku sii dili lahayd laakiin ilaahay waa kariim uu ka qariyay sidoo ajashaada u qariyay ayuu arsaaqadan ilaahay kugu qariyay min maalinta aad dhalatay ilaa aad dhimanayso wixii adduunyada biyo iyo baad iyo bariis iyo hilib iyo caano iyo hawo aad ku lahayd
هذه اللي قصين لها كي دقل لها بالشيك إمسا بخار بدو بان لها ما يلتين الله شو حركات الله شو واحد معاك يقدر كل هذا أي أجسنا والله قريي أرزاق الدين والله قريي مركزا ولي بالله شيء والله قايري أرزاق دادي يقون تادوسكو ما حدنا سيدي نيجي نبي قوي مدايري لمن ولا على عياه هايين من نفر السماء يقام بوها من مسجد نبي قو فدين جري ونبي قو علمك كرب جري عليه الصلاة والسلام بركاكي حرف الله هاي مقالة وشقتك جري أي النبي كد دعوي عليه الصلاة والسلام وحو كد دعوي ولكن رسول الله داني قوم بصوت تبع يقول يسقون هل كان مسكيت كأم بفريا وحو النبي يقول جواب لعلك ترزق به بكيري لعلك ترزق به وها حقيقة أو ضرب النبي يقول لي هي إن أرزاق قدب إلهي سقك كوسيني في اللجيس توكلك تلاسار شد إلهي وتلاسارتي اعتكاف كان مسكيتك وكجرو برشد إلهي دينتي سأوبرنا يو تقوى مسكيتك كسو حريسي أي الله يا أبا أرزاق دين إلهي كوكو فضيدني معنه قوي يا سلاس مركا أقول تمر الدين إنه وأن برنا إنه أقول إيوه الله برتنا مدين إنه لكن وحنا نبغى قف وحبرنا يا إنه مركو الرسول ونقد قف إلهي سيقانا دكتور إلهي يقانا إنجنير إلهي يقانا تاجر إلهي يقانا مسؤول إلهي يقانا فقير إلهي يقانا عاقل إلهي يقانا أغاس إلهي يقانا وأنا نقطة قف إلهي يقانا نتاجر وقنع صداع أيا جماعة كزيارة حفيز كيسي شاشد وين باهرت الله حفيز كست أو شغاليه سؤال فرديان كاميرا بودو سرون هالكا بكلا صعدا سفي عن هذا الكود جيست مركز جماعة دي كل كي حديثين بيكون هذين شاشدنا ندخل بمر إيه سيد نذكر الدحس السعودان وحلو الشغاليه بان هالكا شغالها يجيب هالكا كلا صعدا بودي وقبل ده بكون جري محد قبلها أو خاوس يقولي من مركز قارك وسلم ضابط كذا عيسى وحولي سكال أو لجو آمنة مجرته كاميرا قابل كبقيان ده حولها يجي الشقة دي بعدين نبض قال يسبولي نقدرت كم حوك آمسية هاي مركز وشقينا يا أردن وتوب إني وإدعان كاميرا قابل حنو وضدول دقي وين حولها يقول أي بدبادان ساسو كامسية سوما هنده هو كامسية وتوب قفل آميني كرامة جرتو يبقى متسد أقول ده كمان أنت وحل آميني كرامة بجربولي كان نلو ديبتمو كل عيابولي طيب شغاله سيقف كمدا أيام مالين سجنا مال لقولا كل ما مركز سالقولي مالين بان سيرفيس كاكو سومري يا دو شقيسا شركه دا ما كشقيا امسا سنا كشقيسا 7 سنه لعق محوين نسيا انت ما انت شقده بلود الى 7 سنه لعقتادو ما انت ان بها انت oo nima biiriyo sanad kasta wuxuu nagu yiraahdaa waan ni biirin noomana biiriyo ballan kasta sanad walba ballan buu noo qaadaa ballanna ma ilaaliyo waana been ala beeydadeen iyakii shaqaalihii waxay isaga ka aaminsan yihiin waa been ala ninkaas isagii iyaka wuxuu ka aaminsan yahay waa tuub haddana ninkii maalin dambaan aragnay bal warano ma fiicantaha shirkadii way kacdo waan xidhay buu yidhi maxaad u xidhay wax dad waan aaminaan weynay buu yidhi khalaas dadkii ammaano ma la buu yidhi waxaa laga yaabaa dadka u shaqaynaya oo dhan inay jaamacada ka soo baxeen isagana inuu jaamacad soo dhigtaan laga yaabaa laakiin ammaano qofka inuu yeesho inuu ballan buuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo inuu cadaalad falo uu noqdo inuu dabeecad wanaagsano uu noqdo
ما دبلوم بيقول بهانتها مسد إيمان بيقول بهانتها بلي شيء إيجا جوابه وفكون الرشيغ النقض وبلن بوحية ونقض بلن إلالية ضبعاد وناكسنة عدالة سماية إحسان سماية إنو نقضو ما الدبلوم بيقول بهان يهي ما مغشى ولي جامعة اللي يرينيك كالصوبحة وحو نقول نين أمانة حافظة نين رشيغة نين بلن بوحية نين عدالة سماية ما مغشين ما جرتها جامعة عينكاس ما جرت ويجرتها وجامعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحجك السعودة أيا وحي أركنين مركا آدو سو سعودو فرسك آدو سو إرينايا مركا عمر بن الخطاب با يقول وحوري ننكاسي كل أنكو نو سعودا يجوك سدبوي وجوجي عمر عيدنك ننكي أو آدو دالن أو آدو نحسن با مركا عمر سو قاري عمر هرتي سو كدعي عمر با مركا كويري منن عدو إرينيان وعبصونا يا آيات هاي أونكم مغان قلنا مسنين دين لقولي هاي أو دينكي بحين كروايي أو أباهن إلا عاوية آيات هاي مسنين نف بني آذن سوقويي وحق دركو السود دلي باتهاي مركاسو انتا منا ميهبو يري وحان كيمي دبيوري بصراء يا كيمي دا بصراء فما قالكو تال العراق أبا موسى الأشعري هلكا أمير نوغا أها هاي هلكا سانو جوغو دنبي إيغا دعي ودنبي كا دعي محوي خمر بان عبي بيولي لأن أبا موسى الأشعري انتو قبتيبو إيغا جريبو حدكو إمريي هاي تمهينا إيغا حيري هاي فرسنا انتو إيغو قادبو مقالدي بصري دحمر يو حويري نكا هلا عننا وهلا فريسننا وهلا صاحبنا وكدر هذا بيولي وجهي بيجي مدوبي بيولي مركا نفتيدي صدح مد بيقول شيء كيسينا سمعيو إما إن أبا موسى الأشعري إنتون قالوا أن قرتك جويو إما إن قالوا إنتون إسكابيرو وعي عبيان أن لا عب وعي عني أن لا عنو يكره عن كم من نقضو إما إن أديك كوي ما ضد دقيقة بتدمير كمؤمنين تا مركا عمر بن الخطاب يا رضي الله عنه إن أديت مدي إلهي بكوا فجيبولي إن قال أوتك هيلين إن أبا موسى الأشعري سجن إنتود الأرض متأدي شانا هيلين مرة دانيك يسوق ديبوي أنا أقول أنت هذا حدا شقك قبل يا أبو راوش وقبل ورقد بوقري ورقد نكر عمر وديبن السجيب ورقد وديب السجيب كله أمير المؤمنين عمر اكتسان كسعوداء وكسو سلام عليه عاد كنت هذا حداد أمير كاغي أنا هاي ورقد يكون قرنت هاي وحق أن كقوله أبا موسى الأشعري وقدرين يسد ورقد نكا وكو كان دغيسو قابل بسو أمري وصار نقد نكي عمر ولما نكي مسيدين فرس بوسي لعب بوسي ضرب بوسي كلكم مدة ولما أوهيي أيود هذا ما يمكن سعوتن بصراء يوم مركا ويمد أبا موسى الأشعري أو خطبة دينيا مركز أمير كي المؤمنين عمر باي صادري عجيب مشتاق وكسو سلامي ورقد أنا ويسو دي بآخر سبو كيدي ورقد دي بآخر ستي نكا فرس كاكا صار مقال الذي أدنا دحمر تمرك ورا لا دحمر عاد كتر هذا لا فريستا لا عنتاية لا صاحبة وولالكين وتوبت كاني توبت وعبدونك إلهي بكذا حيسا وحي هوران هذا اللي قد عودنا وكان نقضي ولكن ما ركتاني عافية أنا ونعافية دي أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سيدي أمير كيسو كو أمري بويا لي هل كي انتو نيكي وقيم دون مدحا كدون كدي فرس كيسيبو ساري مقالة دي وسيدا وصو دحمري ولكن وطوبت كاني عمر بن الخطاب وتقي عمر بن فرنتا انو سوق قاداي ولكن لا عنتايا ولا فريستا ولا صاحبه ولا شاكيستا
oo la noolaada waa taa dadnimadu mas'uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya professor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya Abu Hurayra radiyallahu anhu gaajo daraaddeed masjidka nabiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nabigu ka baxayo ku dhici jiray niga reer miyiga magaalada Madiina ku cusub ayaa intuu isku dul taaga oran jiray warmaad warantahay meesha ka kax marka uu oran jiray ma wali Abu Hurayra wuxuu leeyahay wali ma waxaan la jiifay gaajan la jiifay buu yiri Umar baa yimiday markaasaan Umar ku yiri aayada Quraanka halka aayada Quraanka ay ku soo degtay Umarow markaas Abu Hurayra wuxuu yiri marka Umar aayada Quraanka aan weydiinayay garasho la'aaniga ma yahayn waxa iga ahayd Umar wajigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wajigaaga ku taalay intuu eego ha garto oo ha ku yiraahdo Abu Hurayra gaaja ku haysay kaale ila soo xaraado ila soo cashay imuu fahmin aayadii buu iga jawaabay buu yiri halka ku soo degtay hadana Abu Bakar baa yimid Abu Bakar wadna bal aayada iga jawaab halkay ku soo degtay Abu Bakarna ima garano ima fahmin aayadii buu iga jawaabay buu yiri waa Abu Hurayra baahi baa haysa saddex maalmood iyo saddex habeen afkiisa cunto ma gelin hadana Abi Bakar iyo Umar inuu baahi u sheegtabo ay ku qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtari moogta soo ma haynta soo ma xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegay mashruuc gaalo innaka ba naguma socdo xanuunkaas naguma socdo cuquba meel kale ku socota haddaad u yeerato ka waran adigu halkii baryihii hore dadku oran jireen balaayo markay maqlaan meelay balaayo ku dhacday ayaa laga alla bari jiro la oran jiray balaayo bayd imikana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo bayd xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi mu'minku balaayo ma sheego mu'minku nicmada ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'amta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo leh ilaahay baa waxa uu dhibaatay ugu sameeyay ayaa iga qabta ayaa ilaahay ka qaban war ma hayad baa ilaahay ka qaban bal sheeg mu'minku balaayada ma sheego Abu Hurayra gaajadiisii Umar uma sheegin Abu Bakarna uma sheegin oo qarsanayay laakiin wuxuu balsiiro farsamo leh ay wajigaaga bal kolkay eegaan ha ka dareemaan oo ha ku yiraahdaan Abu Hurayra marka hore aan sufaada hayde oo magaalada Madiina qareen iyo qarabo kuma lahayne waad gaajootay in mari ha ku yiraahdaan iyakiina ma fahmin walaakin nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam markuu nabigu igu soo baxayba halkaas uu nabigu ka fahmay halka buu ka fahmay ya Abu Hurayra qaal aniga ila soo cashay buu ka yiri qaal ila soo cashay koob aanu nabigu ugu yimid reerkiisi koob aana aya la koob aana ku yeela nabi Allah ya Abu Hurayra masjidka ku noqo ahlu sufiyo dhan inoogu wadeer caawa aana in la cabaan waa koob aana Abu Hurayra nabi Muhammad hadalkiisa ma oran karo laakiin niyadan ka iri buu yiri koobkan aanaha adigoo ma kugu fiicnaaye miya lagu dhiiba ha ku cibaadaysatid laba habeen ahlu sufuuna waa ragaad garanaysid masjidka deganaayo ayaga laftigoodu maalmeed wax ma cunin de kulay nabigu kolku u yeero ay yimaadaan ay fariistaan aduu kooradana Abu Hurayra aanaha qaado siisi ka u horeeyo la siiyo himin buu laakiin nabi Muhammad hadalkiisa may oranayna waa u yeeray aqalkii markay fariisteen sidii uu ka maleynayay meesha u dhacday ya Abu Hurayra buu nabigu koobka aanaha qaad ninka ugu horeeyana u dhiib hakana qaadin buu ilaa isagu ku soo celiyo mooyaane koob aanaha raga loo yeerana waa ragee ahlu sufa ki horeeya markaas u dhiibay waan eegay waa aano halkoogii jooga kii kale aan u dhiibay halkoogii 90 70 nin iska dhig
markaasuu nebigu yidhi yaa abaa hurayra ayaa hadhay ii sheeg yaa rasuulallah adigii aniga hadh fadhiiso aduu cab waan cabbi ku celi haddana waan cabbi ku celi ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meel ee caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan idhi buu yidhi deedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay hambadii buu nebigu cabay alayhi salaatu wasalaam waxaan ka wadaa fuqaradoodu baahi way qabeen laakiin baahidooda ma sheeganayn baahidooda iimaankaa daboolayay wallaahi waxaan u baahannahay maanta ummadda in iimaanka loo dhiso ummadda in ilaahay lagu xidho ummadda in aakhirada loo jeediyo ummadda in diintooda macaanka diintu ay leedahay loo sheego taan maanta u baahannahay waa taas ducaad ma noqonnaa mise cudbaad baan noqonnaa bal kala doorta yaa u diyaar inuu noqdo daaci caabida waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila dacaa ila allahi dacaa baa horaysa qum faandir baa horaysa wacamila saalixanna waa la dambaysiiyey aadaankaa horeeya salaadaa ku xigta dacwadaa horaysa camalka wanaagsan baa ku xiga nebi baa adduunka imanaya risaalad baa loo soo dhiibayaa dacwad buu bilaabayaa dacwadda markuu bilaabo ayaa ummaddu diinta u soo jeesanaysaa markaasaa mujtamaca noloshooda diini ka muuqanaysaa lidaalika dacwaddu asaaska diinteenna islaamka weeyaan markii dacwad la helo ayaa ummaddu diinta jeclaan deedna diinta inay bartaan oo ay ku camal falaan oo ay ku dhaqmaan markaasaa markaa ummaddu ay diinta macaankeyga dhadhamin insha allah dhahada diinta dadaalkeega wakhtigeenna maalkeenna dhaqaalaheenna caqligeenna cimrigeenna inaan diinta gashano soo diyaar uma nihin wallaahi dacwaddu waa naxariis dacwaddu waa raxmad ummadoo masaajida loogu yeedhaa waa raxmad ummadoo qur-aanka la baraa waa raxmad ummadda oo cilmiga la baraa waa raxmad ummadda oo masaajida loogu yeedhaa waa raxmad ummadda oo ilaahay xaggiisa loogu yeedhaa waa dadka dhisidoodii war haddii magaalada oo dhan wada fooqag laga wada dhigo oo wadooyinka oo dhanna lanooga dhigo muraayado oo waddanka oo dhanna qof aanan shaqayn la helo oo dadkao dhan wada shaqeeyaan laakiin dadkii ay been ku macaamaloodaan oo khiyaanadii ay badato oo ammaanadii ay yaraato oo qiibadii ay badato oo dulmigii uu bato oo zinadii ay badato oo fisqigii uu bato oo fujuurkii uu bato maan hore u marnay mise waan dib u dhacnay bal iga jawaaba daarihii baan dhisnay wadooyinkii baan dhisnay mashaariic horumarneed baan samaynay jaamacadihii baa batay khariijiintii baa badatay jaamiciyiintii baa batay hoteeladii baa batay warshadihii baa batay laakiin dadkii ammaano male run sheeg maaha ammaano male run ma sheegayaan ballan ma ilaalinayaan cadaalad ma samaynayaan ixsaan ma samaynayaan isma jeclo isku damqani maayaan maan horo marnay mise waan hoos u dhacnay iliga jawaaba waan hoos u dhacnay idan hadday aqaladeennii baadiyaha ay yihiin oon adhi iyo geel aan dhaqanayno oon beeraha falanayno laakiin dadku ay yihiin dad ilaahay yaqaana dad ammaano leh dad khayr badan dad run sheegayaala dad cadaaladda ilaalinaya dad isku naxariisanaya dad isku damqanaya dad xumaanta ka dhiidhinaya dad wanaagga jecel oo xumaanta necab hadday yihiin waan horumarnay ogaada horumarku maaha dhiska horumara horumarku waa bini aadamka horumaro weeyaan diintu markaa dadkay dhisaysaa daacigu wuxuu ka shaqaynayaa dib u dhiskii dadka ninka madaxa markay doorasho soo dhowaato madaxdu markay doorashada galayaan nin kastoo siyaasiya wuxuu yidhaahdaa wadooyinkan samaynaya mashaariic horumarneed baan samaynaya tacliintaan bilaash ka dhigaya tacliintaan kor u qaadaya dhakhtaradaan badinaya caafimaadkan bilaash ka dhigaya warshado ayaan samaynaya car nin madaxa oo odhan kara dadkaan hagaajinaya ma maqasheen iliga jawaaba war ma maqasheen nin madaxweynaha oo yidhi dadka siday ku hagaagi lahaayeen baan ka shaqaynaya ma dhacda inuu yidhahdo may waayo fannigan dadka lagu hagaajinayo fanniga madaxda maaha waa fanniga culummada weeyaan waa fanniga ducaadda weeyaan waana taan u baahannahay maanta waa ta aan laanahay weeyaan halkaa xadiis baan ku soo khatamayaa alaa ukhbirukum bikhayrikum min sharikum
قالوا بلى يا رسول الله قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ما ينيش قابو النبي يري كين ينيغو خير بدن iyo kiina inigu shar badan markaas saxaabadu yiraahdeen markaa buu nabigu kiina inigu khayr badan waa ninka khayrkiisa la rajeeyo sharkiisana umadu ay ka nabad gasho khayrkiisa loo rajeeyaa ilmahaagii baa maalan ilmo yar wax ku dhiftay markaas aad tiri ilmahaagii baa maanta ilmo yar oo kala cawiray oo ilmaha ayaa dhalay odaygii hebel baa dhalay markaas odayga ahaa war odaygaas waa oday helul khayra waa oday miskiina waa oday macquul ah waa oday ixsaan badan marna isfahmi waaye maysaan waa nin la isfahmo waa nin cafis badan anigay beri arrinna dhex marto arrintii si khayr loo wanaagsan buu ku dhameeyey war ninkaa nin shar laga filanaya maahine khayr baa laga filanaya inoo geeya kaasay nigu khayr badan buu nebigu yidhi ka kalena waa kae khayrkiisa aanan la rajayn ma ilmahaagiibaa ilmihiisa wax gaadhsiiyey ilaahay baad leedahay kaabay arrini kaa gashay miyaa ilaahay waxa kaa siiyo ilaahay baad adiguna leedahay war ii raac oo bal ninkana dhexdhexaadi laysma fahmaba kaas waa nin tiisa unay la quman tahay garna ma gasho garna kama baxdo sharkiisana ilaahay baan ka magan galnay waa miaal yani xadiiskaasi eeg waa xadiis xasan ah dadka khayrka badan leh nebigu sidaasuu sheegay iyo dadka sharka badan leh marka haddaan diinta ka shaqayno dadka khayrka badan leh ee khayrka jecel ee ixsaanka badan ee dulqaadka badan ee wanaagga jecel ee cafiska badan ayaa mujtamaceena ku badanaya haddaan diinta iyo dacwadda ka shaqayni weyno iimaankaa hoos u dhaadhacaya taqwadaa yaraan alla ka baqaa yaraan deedna markaa waxaa kor maraya dadkii khayrka badnaa waxaa ka badanaya dadke kafadda miisaanka taariku salaaga xaggan haddii la saaro maanta iyo dadka salaada ilaaliya iyo ma badan war kafadda tee culus taariku salaaga cuslaanaya soo maa kafadda dadka khayrka badan leh iyo dadka sharka badan leh maanta mujtamaceena ayaa ku badan meel walba caalamka waxa maxaa keenay waa ka shaqayn la'aanta aan diinta ka shaqayni weynay ayaa dadnimadii hoos u dhacaysaa hoos adduunyadiina kor baa u socotaa maanta marka ilaahay kuwa diinta ilaahay u dadaala ee barta ee ku camalfala ee ka shaqeeya ee ilaahay khayr ugu khatimo allah inaga yeelo soo diyaar ma nihin insha allah